dhaqaalaha shaqadani horta laba mid bay ku xirantay waa agreementka koowaad isla gaadhaan cidda ku hire gareynaysa number 1 agreementkaasna wuxuu ku sii xidhan yahay inta gaariga company ku jirto inta check sameynayso imsa saacadood baa dheeligaaga laga rabaa in maal sidaad caadiga inaad ka shaqaysid barnaamijka imsa xataa waxaan aaminsan qofku haddii aanu hayso qof shaqadan ku jira isla inuu heli karo haddii hal qof ku garanayo Mareykan inuu heli karo qofkaas oo ka caawin karo talo waa maxay requirementska ugu muhiimsan ee looga baahan yahay qofka raba inuu business systemka ku shaqaysto hal company lama shaqaynayso inta hesho multiple companies 10 15 8 6 4 5 3 2 1 intii companyada hesho oo mid walba lacag gaar ah ku charge gareynayso ayaad la shaqaynaysaa ku soo dhawow cilmi platform xarunta iyo madasha aad ka baran kartid xirfadaha casriga ah fadlan nagu soo biir oo imika isdiiwaan geli maanta runtii barnaamijkan aan halka ku qaban doonaa waa mid aad u qiimo badan waxaa marti noogu ah nin dhalinyara oo muddo mawduuciisa aad u raadinayseen maxamed khadar saaxiib aad baa kuu soo dhaweynayaa ku soo dhawow barnaamijkan podcastiga caawa asxaabtaydu aad bay runtii u jeceshay mawduucaaga sababtoo ah muuqaalan soo dhigay baan ka dareemay siday uga falceliyeen marka hore bal soo dhawow bal waa kuma maxamed khadar aad baa ashkul mahadsan tahay aniga horta magacaygu maxamed khadar maxamed waxa weeyaan dadka dhalinyarada ee ku nool magaalada Hargeysa kala faa'iideysta xirfadaha online-ka ku jira doonaya hadda inuu uga faa'iideeyo dhalinyaradiisii ka oo hadda head arday jaamacadeedna waan ahay jaamacadna waan dhigtaa sidoo kale online-kana waan ku shaqaystaa aad baa mahadsantahay maxamed waan kaaga mahad celinayaa runtii waqtigaaga qaaliga ah runtii waxaa jira barnaamij dadku aad u xiiseynayeen weliba dhalinyarada iyo asxaabta igu xidhan markii aan u soo bandhigay waa barnaamijka loo yaqaano billing system oo runteed moodid bulshadeenu inay ku cusub tahay xirfadda noocana oo aad ay ula yaabeen runtii qaar badan oo ka mid ah oo yidhahdeen xirfadda noocana ninka ka shaqeeya muxuu bal hore noola soo wadaagi waayey haddaba bal waxaa faham u yara baahan nidaamkan billing system aad ku shaqaysid bal in yar noo faahfaahay waa maxay billing system taa shukurow billing systemkan magaciisu baa iska weyn waa wax fudud waa wax uu qof walba qaban karo billing systemku waxa loo yaqaanaa nidaamka check samaynta ama in invoice-ka loo sameeyo tracklayaash markay shaqadii dhameeyaan in loo sameeyo invoice ama delivery statement ay ku qoran yihiin darawalka wiiga u shaqeeyo informationkiisa waxay shaqadani waa shaqo remote online ah oo qofku meel walba kaga shaqeynayo hadduu qofku USA ku dhex nool yahay iyo hadduu Hargeysa joogaba shaqadu waa online online wax ma dheero haddii halka online lagaga shaqeynayo halkan online waa lagaga shaqeynayaa marka shaqada haddii uu gudo galo billing systemku waa nidaam check sameyn check-ga la sameynayo waxa weeye markuu darawalka shaqadii dhameeyo ama weekly ha u shaqeeyo ama bill ha u shaqeeyo ama maalinlaba ha u shaqeeyo check ay ku qoran yihiin informationkiisa check-gaas aad u muhiim ah waxyaabaha uu aad ugu sii muhiimsan check-gaas cid u baahan wax weeyaan in driver-ka wuxuu sameeyay wiiga ama maalinka ama bisha sidoo kale uu annual income-kiisa ku xisaabsado check-gan waxay ka caawinayaan annual income-kiisa ku xisaabsado sidoo kale governmental agencies-kii ayaa ku cashuuraya dawladdu way ku cashuuraysaa qofka yearly income-kiisa ay ku cashuuraysaa sidoo kale waxa jirta marka dee uu bangi wax ka soo qaadanayo ama uu payment wax ku qaadanayo ama wax kale ku qaadanayo waxa la rabaa wuxuu yeerkaa sameeyay wuxuu yeerkaa sameeyay inuu iska soo qorto meel ku qoran 100 kuman yeerkaa sameeyay waxa ka taas badan oo laga aaminaad badan check-giisaas ay ku qoran yihiin marka billing systemku waxaan ku soo koobayaa waa nidaam check sameyn oo loo sameeyo darwalada markay shaqadii dhameeyaan kaasi ku qoran xogtii wixii uu shaqeeyay wixii ka go'ay iyo wixii uu qaadanay home take by lacagtii uu qaadanay ee ku jira runtii waxaan rajaynayaa bulshadeena imika inay aad u fahmi doonto barnaamijkan oo runtii laga faa'iideysan doono bal barnaamijkan xagee laga shaqeeyaa billing systemkan meel walba laga shaqeyn karaa caalamka laakiin sida ugu badan 99% waxa laga shaqeyn karaa waa Mareykan oo traagyada ugu badan daily activitiesska transportation-ka Mareykanka waxyaaba ugu badan waxa weeyaan waxa qabta waxa weeyaan waa track marka wax meesha ugu badan laga shaqeyn karaa waa Mareykan laakiin qofku hadduu fahmo systemka waa online accountant waa xisaabin online meel walba caalamka kaga shaqeyn kara Hargeysa dhexdeedu kaga shaqeyn kara Kenya kaga shaqeyn kara Uganda kaga shaqeyn kara laakiin meesha ugu badan 99% laga shaqeeyaa waa Mareykanka dhexdiisa waxaan rajaynayaa qof kasta oo bal maanta fahmay barnaamijkan iyo meesha laga shaqeeyo in dhammaan dhalinyaradu imika koolasha waxa weeyaan ay xiijin doonaan dhammaan familiyadooda Mareykanka ku nool oo ay ku oran doonaan maxaad fursaddan hore noola soo wadaagayeen waad nooga taliseen okay runtii qofka u baahan barnaamijkan inuu bilaabo waxa hubaal inay jirto
requirements looga baahan yahay iyo shuruudo qofka looga baahan yahay oo la'aanteed aanu bilaabi karin. Talo waa maxay requirementska ugu muhiimsan ee looga baahan yahay qofka raba inuu business systemka ku shaqaysto? horta barnaamijkan qof markuu ku shaqaysan waa shaqo online ah waxa weeyaan inuu mathematically xoogay excelka maartay excelka excel sheetka inuu aad u yara yaqaanaa muhiim ah qofku excelka uu soo shaqeeyay ama uu soo isticmaalay haddii uu rabo inuu bartay inuu excel kiis ka soo dhiso sidoo kale computer skillskiisu inay dhisayihiin computer skillskiisu iyo excelkii waa isla halkii uu waxa ex computerka wax extra lagaaga baahna kaliya inaad excel ka isticmaali karto ayaa laga rabaa wax kale requirements oo fara badan ma jiraan aan ka hayn qofka internetkiisa laptopkiisa inuu excel ka isticmaali karo wax kale requirements oo ahayn ma jiraan shuruudo kale lagu xidhaya shaqada qofku markuu shaqada dooyin helo kaliya shuruuda kaliya ku xidhan wax weeye qofkan inuu wax fahansan yahay inuu wax accurate samayn karo inuu wax saxan u soo saari karo fahansan systemka uu solve karayn karo mararka qaar baa lacag la haraa oo wax misina jireen mararka qaar baa lacago not paid waxa loo yaqaano unused cap waxa la dhahaa jiraayo unused blog waxa weey load aan shaqaysan baa la iska soo diraya mararka qaar baa waxa shaqaysta laga haray qofkan markan waxyaabaha xallin karo oo ku baranayna oo course-ka dhexdiisa ku barano waxyaabaha qofka looga baahan yahay kaliya waxa weeyaan laptop English waliba perfect ma ahayn qofka ahaado kaliya email qori karo emailka waliba saas lagu sii baahneen marka check-iyaad samayso platformkeeda ugu dirisay hadii WhatsApp badanka lagu diro email through email baa lagu diraa qofkii markuu iska dirayo check-iyo qallan ma diray email yar buu raacinaya so Englishkiisa inuu moderate yahay laptopna haysto English iyo sidoo kale computer English iyo Excel inuu qofkaasi aqaano isticmaali karo waa shuruudaha shaqada ka soo qaadba qofkii inuu dhammaan shuruudihii uu buuxiyey looga baahnaa inuu business system ku shaqeeyo oo xirfadii bartay sidoo kale uu si wacan u fahmay xirfadii bartay luqadii iska geejiyey oo qofkii noqday qof diyaar u ah oo requirementskii ka hordhan ka soo baxa waxa su'aal weyn ka taagan tahay sidee baa shaqadan lagu helayaa sababtoo ah ma aha shaqada sidan caadiga ah ee magaalada u taala looga shaqayn karo tiro qofka sidee buu ku heli karaa shaqadan business systemka ama ugu shaqaysan karaa shaqada qofku markuu helayo shaqadan business systemka saddex si buu heli karaa saddex siyaabo basi waa sida koowaad qofka social media isticmaalaya inuu social media isku muujiyo inuu base maker yahay oo dadjeegadan uu sameeyo wadada kombaniyadina wadadina la mid ah social media isticmaalayaan qofka halka ka soo arkaa waa qodobka labaad inuu samaysto inuu through email ku apply garay sida shaqooyinka caadiga loo apply gareeyo shaqada Soomaali ajaanib iyo cid walba la shaqeyn karta iyo qodobka saddexaad ugu muhiimsan oo ah macaarifada ama connectionka waxa la dhaho networking waxa la dhaahdo oo qofkii inuu raadsado dad asxaabtiisa ama ehelkiisa ama qaraabadiisa madad cid uu ka garanayo Mareykan oo shaqada ku jirta xataa waxa la aaminsan qofku hadii aanu haysan qof shaqada ku jira isla inuu heli karo hadii hal qof ku garanayo Mareykan inuu heli karo qofkaas oo ka caawin karo ayna shaqadana baydo aad baa loogu baahan yahay inay Soomaalida soo fahanto shaqadan business systemkan iyo nidaamkan check sameeyta wax aad iyo aad loogu baahan yahay sababta waxa keenaysa waxa uu sameeynaya Soomaalida waxa sameeynaya ajaanib Mexican inda yara Arab waxa weeyaan dad baa u sameeynaya qofkii Soomaaliga ee qof ajaanib u sameeynaya maxaa diidaya marka qof Soomaali halkan joogay shaqadii barto inuu dadkii u sameeyo waxa jira bayday dad familiyadoodu ay leeyihiin company tag oo haddana isagoo familigiisa company tag uu leeyahay haddana dad ajaanib u sameynayaan sidii bay ku dhacday oo $2000 lagu charge kareen $2500 per company lagu charge kareenayo si ku dhacday marka nidaamkaas saddexdaas siyaabada ku sheegay ay shaqada lagu heli karaa runtii shaqo kasta iyo xirfad kasta lifestyle gooniya leedahay runtii saad noo warantayna noo sheegtay waxa tahay nin Mareykan u shaqo tagay isagoo Afrika ku nool runtii lifestyle ka duwan baad yeelanaysaa marka lifestyle-ka caadiga ee waddanka ka jira ama Afrikaba guud ahaan bal in yar noo sheeg bal lifestyle-ka qofka business system ku shaqeeya taro daily life-kiisa isbuuciisa taro sidee u eegtaa lifestyle-ka business system qof ku shaqeeya shaqadan business systemku lifestyle-keedu waxaan malaynaa inuu ka mid yahay lifestyle-da adduunka ugu wanaagsan sababtoo ah waxa weeyaan shaqada mostly average le 90% weekly baa shaqada loo qabtaa marka kulay weekly baa loo qabtaa waxa weega one day baa qabanaysaa one day waliba Amazon ta marka la shaqeeyo waxa jira company small carriers waxay la shaqeeyaan waxa jira waxa la dhaho personal operator iyo small carrier small carrier ka far badan oo aad iyo aad u far badan oo company track ay ku jiraan oo Amazon ka dhex shaqeysanaya company-yadaas khamiisto kaliya ta loo qabtaa waliba khamiisto dhan maaha saacad aba 2 saacadood aqoontaada ku qoranta khamiistiyo kaliya ta
aad qabanaysaa 6 days of the week yama labada saacadood wixii ka soo hadho dhan off waa tahay free baa tahay meesha doontama kaliya khamiistaas un qaba weeyaan khamiistaas kaliya ta la qabtaa marka Amazon really iyagana ugu far badan oo lala shaqeeyo Amazon really small carriers way ka dhex shaqaysanayaan waxaan ka dareemayaa inay tahay shaqo aad u fudud oo runtii loogu wadi karo shaqooyin kale bal imisa saacadood baa dheeligaaga laga rabaa in maal sidaad caadiga inaad ka shaqaysid barnaamijka anigu markan subaxa khamiista soo kaco shaqada waxaan bilaabaa 2 duhurnimo ayaan usually bilaabaa bacda qadaaga kadibna waxaan iska dhameeyaa 3 ilaa 2 barka markii u baato 4 ila gaadha midka shaqada waxyaabaha kaga muhiimsan shaqooyinka waa part time kuwa shaqo waqti yar ka shaqeyn waana kula wiigi dhowr saacadood baa qabanaysaa shaqooyinkaagii caadiga ahaa aad ku dul qabsan kartaa xabal aad ka ugu sii jeclaystay ashkuro shaqadan waxa kamid ah hal company lama shaqeynaysa inta hesho multiple companies 10 15 8 6 4 5 3 2 1 intii company hesho oo mid walba lacag gaar ku charge gareynayso ayaad la shaqeynaysaa marka waa inta adigu hesho dadaalkaaga haddaad afar hesho waa la sii raadiyaa sababtoo wax saacado minida yar oo kooban aad qabanayso kadibna aad finalize gareynayso aad dirayso shaqada marka sir bay leedahay sirta kaliya shaqadan leedahay waa in waxaagu saxsanaada waxaanad qorayso inay wax saxsan yihiin weeyaan sirta kaliya shaqadan leedahay wax saxan u yahay jeegaagan saxanaantiina waxa weeyaan sirta ka sii dambeysay in wada deganaan iyo waxa la dhaho double checking always you have to do double check always step ka qaado waa double check samaysaa step ka qaado si shaqadaadu wax saxan u noqoto runtii maxamed markaan eego sida aad ugu waraysay barnaamijka nin muddo dheer ku jiray baad u egtahay talo imisa sanadood baad ku shaqeynaysaa xirfadan business system waxaan bilaabay shaqadan early 2022 waan bilaabay 2022 ilaa hadda waan ku jiraa de afarta sano weligay cid uma shaqeynin shaqadan waa freelance waa shaqo xoriyad ah khamiisahaas un baan shaqeynayay weligay afarta sano cid aanu shaqeyn oo jirta imika isbali cid kale aad shaqeysido shaqadaydaas un baan de ku sii dhex jiray khamiistaas un inta lixda ashyaa kala aad iska seexaba runtii maxamed waxaad moodaa barnaamijkan inay aad isugu soo dhow yihiin barnaamijka track dispatch oo runtii in badan ka warannay bal haddaad in yar inoo taabato bal maxay ku kala duwan yihiin track dispatch iyo billing system guud ahaanteed haddaan isbarbar dhigo billing systemka iyo track dispatch waa inaad adigu rarka u raadiso gawaadhida oo gaarigan yaalaa rarkii uu qaadayay hal mar uu qaaday u raadiso rarka markuu dhigo kadibna aad ku kala u raadiso rarka aad u qaadayso ayad percentage lacagta rarka raidka block raidka lacagta ku qaaday aad percentage 2 3 4 5 percentage ayman ku leedahay per block wala rartaba application baa jira DAT wadada ay ku mideysan yihiin kuwii rarka raadinayay cidii laga qaaday cidii qaadisay wixii baa ay ku mideysan yihiin application kaas login garaysaa fee yar buu dadka ku charge karaya laakiin billing systemku isagu ka duwan yahay billing systemku waxa weeyaan nidaamkii check sameynta darwalka markuu shaqadii dhameeyo inaad cheegagii u sameyso cheegagii uu ku qaadanay lacagta cheegagan marka loo sameeyo cheegaga markuu sax noqdo kadib uu lacagta heliya darwalka kan nidaamkii uu cheegii uu lacagta ku qaadanay u sameysay weeyaan Amazon marka la shaqeynayadu way ka yara fudud kuwa kale oo website dhameystiran wixii halkaas iyada wada yaalaan so Amazon baan anigu la shaqeeyaa Amazon toniyadu way ka yara fududahay haga track dispatch ka way ka yara fududahay Amazon rar adigu ma raadinaysa shaqadaadu raadin ba maaha track dispatch waxa la dhaho waxa weeyaan waa in services la qabto track dispatch waa serviceski track loo qabanayo oo rar loo raro laakiin billing system totally waa different waa in check la sameeyo check la sameeyo weeyaan bal haddaynu nimaadno bal dhanka dhaqaalaha oo ah meesha ay u dhimatay ama meesha ay dad badan sugayaan oo isweydiinayaan dhaqaalaha laga sameeyo barnaamijkan billing system bal noo sharax talow bal dhanka dhaqaalaha xoogaa ina yara dhexgeli dhaqaalaha shaqadani horta laba mid bay ku xidhantay waa agreementka koowaad isla gaadhaan ciddaa ku hire garaynaysa number 1 agreementkaasna wuxuu ku sii xidhan yahay inta gaariga company ku jirto inta check sameynayso haddii gawaadhida meesha ku jirta yara fara badan tahay hawsha qabanaysaana badan tahay lacagteedu way fara badanaysaa haddii hawsha qabanaysaa dhexdhexaad tahayna lacagteedu dhexdhexaad way noqonaysaa marka kulay dhexdhexaad bay noqonaysaa lacagteedu ama way yaraanaysaa waxa weeyaan averagely salary-ga qaataan wax ka sareeya dhamaan dadkiinan ka shaqeeya 8 hours ka shaqeeya 12 hours dadka shaqeeya marka usually waxa u dhaxaysaa per company waxaad gaari kartaan maximum marka halka joogto weekly waa loo qaataa waxay ku xiranta agreementkiina koodani ku sheegay weekly lacagta u qaadan kartaa mushaarkaaga billana u qaadan kartaa
oo marka Mareykanka dhexdiisa la joogo dadka Beestab Makerska Mareykanka dhexdiisa jooga weekly bay lacagta u qaataan weekly buu company-giiba 500 can you imagine Cabdishakuur oo nin 20 company la shaqeynayo oo midkiiba 500 weekly ka qaadaya waa one week oo saacado yar kooban aad qabanaysido saayinta u dhameysad file iskareyso email ku diraysid soo lacag fara badan so weekly waa loo qaataa billana waa loo qaataa marka lacagtu waxay u dhaxaysaa usually 2000 hadaan u malaynay xagga ugu sareysa company laga qaadi karo inay tahay ilaa iyo 200 kawaantii shaqada qabanaysa ku xiranta qodobkaas ugu muhiimsan hadda laba gaari u shaqeynayso da macquul ma aha $200 qaato laba gaari oo kaliya jeego qabanaysa ka 300 400 500 600 700 ilaa inta shaqada qabanaysa ka xiranta weeyaan adigoo waliba dhowr company la shaqeyn kara 5 6 7 state gaarsiin kara dhaqaalaheedu waka waliba shaqada xataa waxa la aaminsan qofka hadduu $50 qaato inaanay u qalmin shaqadan adduunka waxa la eegaa per hour qofkan intuu shaqeynayo khamiistii 2 saacadood xisaabi bisha dhan waxa shaqeynaysa 8 saacadood maximum 10 saacadood waa bisha dhan haddii per hour lagugu dhufto macquul maaha qofkaas inuu lacagta qaato waa hawsha fudud soo qofka haddii uu ku shaqeeyo waxay ku xirantahay marba sida uu dhiirka ula galo qoladaas kale runtiina waana runoode every shaqo kasta oo taasay ku xiran tahay insha Allah waxaan rajeynayaa dhalinyaro badan inay barnaamijka soo geli doonaan ugu dambeyntii Maxamed runtii waa kaaga mahadcelinayaa waqtiga qaaliga ah su'aasha ugu dambeysa runtii dhalinyaro aad u badan baa inagu xiran dhammaantoodna qaar badan oo ka mid ah ay xiiseynayaan skillkan inay wax badan ka ogaadaan amaba ay soo dhex galaan qaar badan oo ka mid ah ay fursad raadis yihiin bal ugu dambeyn Maxamed maxaad kula talin lahayd dhammaan dhalinyaradaas inagu xiran horta waxaan anigu talada koowaad qofka siin lahaa Soomaalida waxa ku yar badan waxaan raaw safe laboodka qofkii wixii uu arkayaa interest buu iskaga raqaadaya degdeg buu soo galay markuu dhex fariisto waxa laga yaabaa interest inuu ka baabao oo meel cidla soo istaago waxaan qofkani ha baaro wixii yahay si deeply ha baaro kadib markuu arkay inuu shaqadii gali karo oo arki karo inuu booska buuxin karo qofkii ku haboonaa uu yahay waliba de maxaa criteria qofku laga rabo inuu buuxiyo aanay jirinba kaliya qofkani waxaan ay ka go'an tahay inuu qabto qofkii markii ka go'an tahay waxaan kula talin lahaa shaqadan waa shaqo la isku arkay Soomaalideena xoog bay u yarta ma way adagtay dadkan arkay inay shaqeeyaan aad iyo aad buu adagtay oo bill systemka jeegaga sameeyaan ajaanib bay naga far badan dadkeenii Soomaalida oo Mareykanka wada jooga wada shaqeeyaasha ah in ajaanib sameeyso oo wax laga yara qurux badan yahay marka waxaan kula talin lahaa qof wal oo laptop haysta Englishkiisu moderate yahay isticmaali kara Excelka inuu course-kan shaqadan u barto barashadeeda wax saawsi adag ma ahaba oo inaad fahanto concept-ka iyo wax socdaan weeyaan ka qof oo xiiseynaya course-ka waxaan anigu kula talin lahaa inuu barto mustaqbalka adduunka sheekan kaaga sheekeynaa nin baa waxa dhacday berigii la qaxay ayaa wuxuu ahaa skill buu lahaa dawaarnimo malaynaya I guess kadib waa la qaxo qaxunti baa la wada noqday qaxuntigii marka la wada noqday waxa dhacday dadkii de nin hanti lahaa iyo nin hanti lahaynba dadka waxay noqdeen xajka marka la joogo waa tad go'aad wada xiran yihiin dadka go'aad wada xiran bay noqdeen ninkii skillkiisa uu meesha la dhex tagay halkii uu lacag ka sameeyay marka skillku wuxuu ka muhiimsan yahay wax wala dunida yaala qofku at least qof wala dunida ku nool waa one skill lahaada so skillkan waa skill aad iyo aad u muhiim ah bayda way meel lagu dhigayna maan arag qofka maanta haduu meel kale xataa aqoonta ka kororsan waa skill lagu cusub marka qofka haduu xiiseynay waxa kula talaa inuu barto si deeply u barto shaqooyinka shaqayaasha la qabtaa waa sidii jaamacad marka soo gasho ka soo noqonis waa sidii heerar bay kala leedahay fresh sophomore third year senior waxay leedahay heerar checklist baa jira iftaa jirto cashuurta gawaarida in online loogu xareeyo waxa jira maxaa gawaarida assets-ka u verify gareysa marka Amazon la joogo waxaad u samayn kartaa jeegagan waxaad gawaarida qaar baa nimanku way iska mashquulsan yihiin moogta gawaarida qaar baa lead gelaya meeshii destination-ki laga rabay waxa kala jira arrival iyo departure waxa kala dhaw arrival waa xilliga rabo inuu yimaado departure ka doonta ku habsaa maxaa u dhax seexdo muhiimadu waa arrival ka waqtigii laga rabay ninba waxa la sameeynaya waxa lagu oranayaa lowd maanta barta ka qaado Nairobi soo xagee kadibna waa ninkaas de wuxuu awoodo ku kaxeeyo marka waxa laga yaabaa inay wax kale helaan habsaabo kadibna habsaankan aad iyo aad bay community ugu baahan qof uga saara habsanka si looga saara way fududay gaariga markuu habsaamo email ba ku soo dhacay sheegay inuu gaarigu habsaamay ama icon yaro saacada soo koriyo qoreen gaarigaas waa late darwalka waa wacaysa numberkiisa meeshu ku yaala ama waad numberkiisa waad helaysaa koonada Amazon waa wacaysa maxaad u habsaantay qof reason buu ku sheegaya reason-kii baad u gelinaysaa reason-adu meel bay ku diyaarsan reason-kii baad u gelinaysaa time-ka imanaysa ETA baa la estimation time-kaaga sheeg baa oranaysa
timekaad ku beeganta wad shaqadaas say u fududay waa reason geli timeku tegayna geli laakiin haddana sida loogu baahi badan yahay cabshukuur hadda ogti sababta way mashquulsan sababta loogu baahi badan yahay ku sii sheego gaariga markuu leed galo hadduu leed muddo ku jiro performance baa jira company-ga la ilaaliyo performance-ka haddii qofku high lagu ilaaliyo performance-kaas at the end of the year waxa laga yaabaa in rate-kii loorka loo dalaco shidaalkii discount loo geliyo ay rewards helaan laakiin hadduu hoos u dhaco waxa laga yaabaa in la terminate gareeyo community gabigiisa meeshuu qofku ka dhex shaqaysanayeen in la terminate gareeyo la xiro suspended ay ka noqoto marka waa sidii jaamacadu aad u badan yihiin qofku mar hadduu soo galay haw diyaar garow journey-ga bil system uu noqonin